hay-adda shaqaalaha dowladda ayaa saaka imtixaan u fadhiisisay 30 ka mid a shaqaalaha ku-meel gaadhka ee gobolka Awdal waxaana soo kormeeray imtixaankaasi agaasimaha guud ee wasaaradda hay-adda shaqaalaha dowladda iyo weliba sidoo kale barasaabka gobolka Awdal gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee gobolka Awdal markay ay soo dhameysteen kormeerka waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay barasaabka gobolka Awdal agaasimaha guud ee wasaaradda hay-adda shaqaalaha dowladda iyo weliba sidoo kale gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee gobolka Awdal waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee gobolka Awdal Axmed Nuur Muuse Bookh wuxuuna yiri inta ay tahay bishii shanaad 2021 waxaan imtixaan kaga qaadaynaa fayskii labaad ee shaqaalaha ku-meel gaadhka iskoolka shaqaale jawhar secondary school tirada shaqaalaha imtixaanka laga qaadayo waa 30 shaqaalaha oo B iskugu jira A iyo B iskugu jira C iyo D na qiimeyn baa lagu sameynayaa wixii shaqaalaha heer gobolka ee ku-meel gaadhka ee wasaaradaha iyo hay-aduhu ay soo gudbiseen ee horey barasaska loo mariyay loo xaqiijiyay barasaskii ugu dambeeyay imtixaan ay marayaan C iyo D da qiimeyn baa lagu sameynayaa oo waa la qiimeynayaa A iyo B dana imtixaankaas aan maanta galayaan annaga liiska halka wasaaradaha iyo hay-adaha inaga yimaadaan annaguna markay noo keenaan barasaskaan marinaa waa qiimeynaa wixii istabisee annagu ku hawshayada aan ka marnaa maanu soo qorin maogtahay ku-meel gaadhka waxaa isaguna geestiisa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbro wuxuuna yidhi waxa aynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaynu shaqaalaheennii tamiiraha qaybtii labaad maantana imtixaanka u fadhiisinay 30 kan maanta gelaya A iyo B bay isugu jiraan waa la qiimeynayaa dadka qaar baa cudurka qabaysanay qofku malaha dul dhaco waa leeriyaa darajadaadun baa hoos ugu dhigaysa laakiin shaqaalihii wada ahaanaysaa waxba ha ka shaqeynaa imtixaanka wixii soo hadhay ee C iyo D sida hay'adda shaqaaluhu ay nagu soo wargelisay waa la qiimeynayaa imtixaan qiimeyn oo oral ay dayna geliyaan qaarna sidii inoo noqon doonaan qaarna iyana wax inaga beerdooraya ma jiro aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'adda shaqaalaha oo runtii xil weyn iska saartay inay u diyaariso imtixaamada qiimeynta oo ku amaanaynaa agaasime annagu hawshayada runtii ilaa kormeerka shaqaalaha inay isu duwayaan xafiisyada fadhiyaan hay'adda shaqaalaha noo qaabilsan riboorka iyadana siisa marka saalay isla jaan qaadana ee xisaabtan yimaadana isu duwala waxa ku qasab noqotay inuu xafiiskiisa yimaado waa laga soo cawdo markii hore qaad baa yiri ma arday baa inta danis baa loo sameeyay marka inuu isu duwala si halga hela xafiiskiisa hay'addu shaqo badan bay noo haysaa inta waxa halkaas hadalka soo afmeeray agaasimaha guud ee wasaaradda hay-adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Maxamed Geedi Caynaanshe isla markaana shaqaalaha u fadhiisanaya imtixaanka halkaas uga diray fariimo ayaa waxa uu tilmaamay tixraacayna annagoo kaashanayna xeerka hay-adda shaqaalaha dowladda xeer number 97/2021 waxa sida xeerka ku cad waxaanu maanta imtixaan ka qaadaynaa 30 qof ama 30 kaalin shaqo kuwaasi oo temporary ku ahaa ama ku-meel gaadh ku ahaa wasaaradaha iyo hay'adaha dalka waxaanu qaadaynaa darajada A iyo B da oo imtixaankaas sida xeerka waafaqsan yahay loogu talagalay in la raaco hab nidaamyaha ama xeer nidaamyaasha hay'adda shaqaalaha dawladda ay leedahay lagaga qaado imtixaankaasi oo qofkii darajadiisu imtixaankaasi waafaqdo shaqaalaha dawladda ahaan doona hadii Allah wada la ogolaado qofka darajadiisu waafaq weeyay imtixaanka ka dhacana iyadoo laftirkeega dib loogu noqon doono maadaama ay temporary yihiin caadiyan qofku hadduu dhaco imtixaan dawladeed liiska waa laga saaraa laakiin maadaama shaqaalaha ay ahaayeen muddo shaqaale ku-meel gaadh ahaa oo qaranka u adeegayay shaqaynayay dee laga saari kari maayo waana la suuliyey wixii ku-meel gaadhka la odhanayay laakiin darajadii uu ku hawlgeli ahaa baa hoos looga dhigaya haddii Allah awoodda la ogolaado darajooyinka C-da iyo D-dana waxaa loogu talagalay haddii la hayraa in technically laga qaado ama farsamo ahaan laga qaado imtixaankaasina iyagu laftirkooda ay ku xalaaloobaan oo ay shaqaale dawladeed ku noqdaan waxaan sidoo kale aad iyo aad uga mahad celinaynaa isku duwaha gobolka Awdal oo shaqadii aan noo igmanay sideeda u haya waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa ka xafiis ahaan hay'ad ahaan barasaabka gobolka
oo xaqiiqatan mar kasta hay'adda si joogto ah ula shaqeynaya ugala shaqeynaya in xataa ay furnaadaan xafiisyadii dawladdu maadaama shaqaalaha dawladda dhammaantood mas'uul ka nahay nagala shaqeynaya inay shaqaalaha dawladdu subax kasta xafiiska shaqadii loo igmaday ay qabsadaan si horumarka qaranka loogu talagalay in lagu gaadho ay u fusho taasina barasaabka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa kolley barasaabada gobolada kale sida uu barasaabku noola shaqeeyo si ka dhow buu noola shaqeeyaa oo barasaabada kale dee kormeerada joogtada ah ee subax kastaba lagu talagalnay in isku duwahayagu isku duwayaasha kale shaqaalaha uu kormeero kama hayna iyagana kolley waxa ka filanaa insha Allah inay barasaab ku daydaan barasaab maxamed oo aad iyo aad aan laftirkiisa ugu mahad celinayno shaqada uu qaranka u hayo oo annagana qaybteedii naga siiyay oo ugu talagalay in hay'addu shaqadii ay u egmanayd maadaama ay hay'ad dastuuriga tahay Shucayb Maxamed kaan Shucayb biga telefishinka caalamiga ee Bulsho magaalada Boorama